كل مركه هربا أنو لما دلنا كرسي كنا واني مد مالينا وان كتجيا هذا عد كلا دورتان عد أي توردان بانكو ريتشينيا وحنا نتاجرنا هاي إن نمد يدو أديجنا مدة هران ونوسو أديجنا إمكانه ونو أديجنا waxay ku jirtaa doorashaduna xildhibaanada golaha deegaanka gacantooda mudane gudoomiye mudooyinka ugu dambeeyay dadka reer Boorama waxa inta badan ay ka cawdaan xagga burburka wadooyinka inkastoo saaka aad bilowdeen diburiska wadooyinka dariiqani mudooyinka la ku dhisaysan insha Allah waxa rajaynaynaa horta waad maadsantahay wariye dawladda hoose waxay u taagan tahay sidii adeegyada bulshada ay u horumarin lahayd dariiqyaduna waxay kaga jiraan kaalinta koowaad sidaas ay tahay waxaan markii ugu horeysay ku dadaalinay bal in la helo qalabkii ummadda loogu adeegi lahaa maadaama 2 bilood ka hor la keenay qalabkaasi oo bulshada in badan sugaysay maantana waxa bilaabmay horumarkii ay ka koowahayd wadadii ugu weyneed ee isku xidhaysay wadada Jabuuti iyo wadada Hargeysa wadadaas oo 2 kiiloomitir iyo 800 waxa rajaynaynaa in sida ugu dhaqso badan wadadaasi loo dhameystiro maadaama aan doonayno wada tayo leh oo drainage leh oo halkii dadku marayeen leh in la dhiso waxa rajaynaynaa inay qaadato ilaa sanadka soo socota bisha saddexaad hadii la hayda marka insha Allah waxa rajaynaynaa inay ku dhamaato muddo 4 bilood inta badan mudane gudoomiye wadooyinka magaalada Boorama marka la dhiso in yar kadib way burburaan inta badan maxaa sababa waxa weeyaan magaalada Boorama waxay ku taallaa meel buuraleeya sida darteed biyaha meesha maraya waa in lagu xisaabtamo inay yeelato drainage wadooyinkeena hore waxa sabab u ah drainage biyaha qaadaya ayaa ku yaraa sida darteed waxa biyaha saameyn ku yeelan jireen wadada waxa rajaynaynaa wadadani inay tayo ahaan ka wanaagsanaato dhulka kor looga kiciyo drainage biyaha qaadayna ay yeelato injineeradii khubarada ku ahaa ee garanayay wadooyinka markii aanu la tashanayna wadadani waa wada tijaabo ah hadii sida aynu doonayna ay u dhisantana wadooyinka kale ee Boorama waxaynu u dhisi doonaa sida ay si lamida marka wada tayo leh oo drainage la ayaan dhisana hadii la hayda dhawaan sidaan ula socono waxa la sheegay in la furay kalfadhiyadii maayarada xilka laga qaadiyay maayarkii degmada magaalada Saylac ayaa laga qaaday dadka markay ku arkaan dad badan waxay oranayaan maayarku malaha waxa uu saska ka qaaday furista kalfadhiyada dadka caanka u hadlaya maxay tahay jawaabtaadu haysay kulay marka horeba aanu lama dhalan kursigana waan mid maalina waan ka tagaya haddii cid kala doortaan cid ay toordaan baan ku wareejinaya waxaan u taaganahay inaan ummadayada u adeegno muddadii horena waa noo soo adeegnay imikana waa noo adeegaynaa waxay ku jirtaa doorashaduna xildhibaanada golaha deegaanka gacantooda mana hayno meel la yiri way xidhan tahay iyo meel lagu yiri way furan tahay xildhibaanada golaha deegaanka iyaga xaq u leh cid ay dooranayaan ama Saylac ha ahaato ama Laascaanood ha ahaato ama Boorama ha ahaato taasina gacantooda ku jirtaa cid ay dooranayaan inta aniga xilka la ii doortayna waan u adeegayaa ummadayda shalay u dambeysay Liban Cali Black oo isku golaha ka wada tirsantiin eeda badan ayay ku soo jeediyay xildhibaanku inta badan waxa uu ku weydinayay inaad xafiiskaana diiman taasi waxa weeyaan anigu bulshada aanu adeegay haddaan ka maqanahayna shaqooyin dawladda hoose ay leedahay baan ku maqanahay taw ka hadlayay ee uu sheegayo corruption kana xildhibaan golaha deegaanka loo doortay oo aan garanayn figuriskii uu ansixiyay inuu cid eedayaaba isagaba sharaf dhac ku tahay wixii uu sheegayna isaga laga rabaa cadeynteeda 15 milyan oo Boorama sheegayna golaha deegaanka waa kuwa ka marakacay miisaaniyadda ansixiyayna waa la yaqaanaa iyagaana u taagan inay la xisaabtamaan cidii ay doorteen laakiin se dadka looseriski waxay ku mashquulsan yihiin inay hagardaamiyaan horumarka degmada loona joojin maayo waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka MMTV Boorama